manihin qaar qaata laaluush manihin qaar hungureeyo dadkooda ay u adeeganayaan ha bixin lacag lagugu yidhi madax ayaa loo geynayaa si muraadkaaga lagugu qumiyo arrimahaas waxaa u xidhan dad intii aanu nimi dowladda hoose waxaa shaqadooda waayey shaqaalihii ugu faraha badnaa ee dowladda hoose intii ay jirtay laga eriyo shaqada iyadoo looga eriyo inay wax istaba mariyeen ama laaluush ay qaateen bismi illaahi raxmaan raxiim waxaa aanu go-aansanay maanta haddaanu nahay guddiga fulinta ee dowladda hoose in shacabkayaga aanu jecel lahay aanu si toosa ula hadalno oo aanu gaadhsiino warkan muhiimka ah oo ay afkaygana ka maqlaan saddexdeedaba baryahan dambe waxaa soo baxay oo soo noqnoqonayaa inay jiraan dad shufto ah tuug ah oo shacabka ku baadhanaya magaca madaxda dowladda hoose iyo magacyada gaarka ah ee madaxda kale ee dowladda hoose oo ku leh waxaa bixisaan lacag diiwaangelina si dhul la idiin siiyo sidoo kale waxaa jira kooxo kale oo iyaguna dad masaakiina lacag kaga urursanaya iyaga oo leh keena lacag waxaanu idinka soo dhammaynaynaa guddiga fulinta go-aamo aada dhul ku heshaan arrimahaas waanu hadda muddo ku daba jirnay waxaa u xidhan dad waana arrimo aanaan ka hadhi doonin muwaadin si arrintaasi usoo afgoodo maanta annagoo xaya oo nool ayaanu kuu sheegaynaa ogeysiiskan ha bixin lacag laaluusha ha bixin lacag lagugu yidhi madax ayaa loo geynayaa si muraadkaaga lagugu qumiyo waayo annagu waxaanu nahay kuwii ballan qaaday inay soo afjaraan maalmaha intii aanu nimi dowladda hoose waxaa shaqadooda waayey shaqaalihii ugu faraha badnaa ee dowladda hoose intii ay jirtay laga eriyo shaqada iyadoo looga eriyo inay wax istaba mariyeen ama laaluush ay qaateen arrintaas oo meel adag maamulkan cusub iyo golaha cusub ee deegaankuba ay meel adag ka taagan yihiin ayaad haddana moodaa kooxa isqarinaya iyo dadkeena shacabka oo u nugul inay bixiyaan laaluush iyo waxaa wanaagsaneyn diinta iyo dhaqanka toona ku wanaagsaneyn inay wali sii socdaan haddaba muwaadin maanta ayaanu kuu sheegaynaa ha bixinin lacag laaluusha ama lacag lagugu yidhi howlkaaga xidhan dowladda hoose ayaa lagugu soo dhammaynaya waayo waxaanu kuu samaynay maalmo kuu gaara oo aada leedahay oo hadday maalmaha kale oo dhammi kugu adkaadaan inaadna soo gaadho aadna soo gaadhayso maalin kasta oo arbaco ah waxaa loo shaqeeyaa dadka shacabka ah 2 duhurnimo ilaa habeenkii ilaa intay ka dhammaanayso maalintaa waxaa loo sameeyey qof kasta oo ay ku adkaatay inuu gaadho xafiiska ama madaxda dowladda hoose inuu si dhib yar maalintaa mushkiladiisa u sheegto hadduu guddoomiye degmo ka cabanayo hadduu qof kaloo madaxa ka cabanayo hadduu adeegii loo qabanayo ka cabanayo waxaa iyaduna sidoo kale la sameeyey maalin kale oo u gaara waxa ugu xasaasisan oo la yidhaahdo maamulka iyo maareynta arrimaha dhulka maalinta axadda la yidhaahdo 7 subaxnimo ilaa 2 duhurnimo ayaa 2 guddi ee dhulka ka shaqeeya ay fadhiistaan hoolkan si ay kugu shaqeeyaan ama xog ku saabsan faylkaaga ama dhulkaaga oo kaa maqnayd ay ku siiyaan sidaa la ajrigeed waxaa tallaabooyinkaas oo dhan loo qaaday si markaasi meesha looga saaro in wax madmadow uu soo galaba shaqada dowladda hoose laga dhex qabanayo ee loo qabanayo dadka min fadlakum ka adeego xafiiska dowladda hoose ku bixi cashuurta xafiisyada dowladda hoose bixi lacagta markaad ku bixiso xafiiska qaado rasiidka dowladda hoose kaas ayaa sheegaya in waxa cashuurta ama lacagta aad bixisay inay sharci tahay
ka fogow inaad la macaamisho qof suuqa iska jooga oo kule waxaan kuu soo dhammaynayaa shaqo kaaga xidhnayd dowladda hoose. ma nihin qaar qaata laaluush, ma nihin qaar hungureeyo dadkooda ay u adeeganayaan. waxaanu nahay qaar gaadhsiiyey adeega ay dadka u qabanayaan inay mushaharkee xaqa ay u lahaayeen inay ka tagaan. muwaadin u dhog yeelo oo u dhug yeelo oo maqal ogeysiiskan waa ku muhiim. qof kastoo dhalinyaro ah waxaan ka codsanayaa waalidka waaweyn, hooyada, aabbaha inay ogeysiiskan gaadhsiiyaan insha allahu tacaala. haddaad laaluush bixiso dembiilaa tahay. qofka qaatay laaluushka iyo qofka bixiyey labaduba waxaananu nahay qaar la gelaya maxkamad sharciga horgeynaya kuwa sidaas samaynaya. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.